asxaabta waan islaamay meel baa joogtaan casharadii kan koorey waxaan kusoo baranay sida la isugu daro loona kala jaro jajabyada maantana waxaan ka hadlaynaa multiplication and division of fractions sida la isugu dhufto la isuguna qaybiyo jajabyada marka ugu horeysa waxaan ka hadlaynaa sida la isugu dhufto kadibna xagga dambe waxaan kaga daranaa sida la isugu qaybiyo marka tusaale ahaan waxaanu haysanaa haddaan ku dhufashada ka bilowno tusaale ahaan waxaan haysanaa a oo loo qaybiyey x oo lagu dhuftay b oo loo qaybiyey y marka labadan fraction waa isku dhufsan yihiin calaamadaas ku dhufasha isku talaaba ka dhigta calaamada ay noo soo qaadan karaa isku mid marka maadaama labadan fraction isku dhufsan yihiin a waxaan iyo b xarfaan waxaan noqon karaa nambaro marka kan numberku doon noqon karaa nambaradas maadaama calaamadaas ay u dhaxayso nambarada isku dhufsan wax kale ma aha waxaan sameeynaa maadaama isku dhufsan yihiin sareeyaasha isku dhufanaya hooseyaasha isku dhufanaya marka a iyo b isku dhufanaya labadana waa isku dhufanaya marka sharciga ugu horeeyo oo ugu weyn magaranaysaa oo iyagoo dhan hoos imaanayaan isku dhufashada fractionada waa intaas macnaheedu sareeyaasha isku dhufo top numbers ma isku dhufanaysaa iyo bottom numbers nambaradaas isku dhufanaysaa iyo kuwa hoose bas marka waxaan u qori karnaa a oo lagu dhuftay b oo loo qaybiyey x oo lagu dhuftay y marka formka labada number wixii ka soo baxay labada number wixii ka soo baxay isku qaybanaysaa marka jawaabtu waa sida markii laba fraction isku dhufsan yihiin sida baad uga shaqeynaysaa wax kale ma sameynaysid fractionada saas uga shaqeynaysaa marka haddaan su'aal bixino oo kale haddaan su'aal aan nahno oo kale waxaan haysanaa 1 divided by 2 times 3 divided by 5 oo kale haysanaa marka haddii labadan fraction isku dhufsan yihiin marka labada number isku dhufanana marka tan micnaheedu waxa weeye hadeer hal lagu dhuftay 3 oo loo qaybiyey 2 lagu dhuftay 5 marka labadan waxa ka soo inta labadan la isku dhuftay iyo labadan la isku dhuftay marka waxa soo baxay 2 lagu dhuftay 3 waa 3 2 lagu dhuftay 5 waa 10 waxa ka soo baxaya 3 loo qaybiyey 10 marka answerkiina waa inta marka wax kale ma sameeyno labada number ugu sareeya isku dhufanaa labada number isku dhufanaa haddaan tusaale kale bixino number b tusaale ahaan waxaan haysanaa 2 loo qaybiyey 3 oo lagu dhuftay 6 loo qaybiyey 5 oo kale waxaan sameeynaa marka waxaan ka shaqeynaa haliya saabta ka shaqeey marka hadeer maadaama waan isku dhufan karnaa sida diraan ka soo shaqeyn labada number isku dhufan karnaa labada isku dhufan karnaa kadib isku qaybin karnaa waxaan kula sameyn karnaa maadaama hadeer labada number isku qaybsamaan maadaama ay ku dhuftahay ku dhufasho calaamadaas tahay xisaabta waxaan ku sameyn karnaa simplify wixii isku qaybsan soo qaybin karnaa labada number isku qaybin sidoo kale isku qaybin karnaa ama sidoo kale isku qaybin karnaa hadii kan iyo kan labada isku qaybsan number ku qaybsan labadooda ka dhaxeeyay qaybinna hadii labada sidoo kale soo qaybinna hadii saas suudaha isku qaybsanaan oo kale isku qaybinna waa isku mid marka hadeer maadaama hadeer labo iyo number 5 isma qaybsanaan laakiin 3 iyo 6 isku qaybsan waxa ka dhaxaysa number 3 waxa ka dhaxaysa oo labada number waxay ka yimaadeen isku dhufashada number 3 sida awgeed tan 3 waxa u qaybsantaa tan 3 waxa u qaybsantaa waxaan oran marka 3 u qaybi waa hal tan 3 u qaybi 6 waa 2 marka maadaama hadeer ay labada number aan isku qaybinay waxaan sameynaynaa haddana waxaan haysanaa 2 iyo 2 xagganna 1 iyo 5 marka waxaan oran karnaa 2 oo lagu dhuftay 2 oo loo qaybiyey 1 oo lagu dhuftay 5 marka halkaas waxa mishiga waxa tirada ka bedeli maayo hal waa asal badoor hadii number lagu dhufto waxa ka bedeli haddana ka tii karaa marka si aad ku fahantaan qoraa dersku waa siisa qoraan haddana hubin oo ganacsi asaasi qoran kartaa marka 2 lagu dhuftay 2 waa 4 de 2 hal lagu dhuftay 5 waa 5 marka answer ku saas noqonaa marka waxa muhiim marka labada number hadii soo qaybsamaan oo kale inaad saas u qaybin kartid marka haddaan si oo kale bixino tusaale kale bixino tusaale ahaan oo kale waxaad haysataa 3 oo lagu dhuftay hal loo qaybiyey 4 marka sidan tahay si loo shaqeynaa hadaba ardada qaar badan baa waxay dhibaato kala kulmaan marka saas oo kale tahay marka wax kale ma aha xisaabta saan hore u soo sheegnay haddii xisaabtu aan hooseeyo uusan qornayn u qosay hooseeyo waxaan nidhi waa hal kale ma qor hooseeya marka hal baa u qorsoon doonaa marka maadaama hal u qorsoon yahay waanu ka shaqeyn karnaa si fudud uga shaqeyn karnaa maadaama hadda ognayn hal ka shaqeeyo waxaan sameynaynaa sareeyahan isku dhufan hooseeyahan isku dhufan marka 3 lagu dhuftay waxaan u qori karnaa oo kale aan kala doono 3 lagu dhuftay 1 oo loo qaybiyey 1 lagu dhuftay 4 waxa la mid marka hadeer maadaama waynu fududeyn 3daas
xagga sare wixii sare isku dhufanay wixii hoose isku dhufanay maadaama aynu hal ugu qarsoon yahay waxaa ka soo baxaya 3 lagu dhuftay hal waa 3dii 4 lagu dhuftay hal lagu dhuftay 4na waa 4tii marka saas baa shaqeynaya oo iska fudud marka d oo kale hadaan bixin tusaale d dan d oo kale bixin tusaale aan soo qaadano dadana waxaan isla markaa qofka 6 lagu dhuftay 2 loo qaybiyay 9 marka sidan tahay oo kale seen loo qaybinana marka maadaama hadeer ay laba lambar soo qaybsamaan oo labada lambar soo qaybsamaan hadda waxaan oranayaa hadeer hal baa qarsoon sidii hore oo kale hal baa qarsoon laakiin hadeer labada lambar soo qaybsamaan marka maadaama hadeer labada lambar soo qaybsamaan labadaba ay ku qaybsamaan 3 labadaba 3 waxaan u qaybin karaa si uu fududaato ama waxaan samayn karaa labada lambar isku dhufan karaa kadibna 9 baan u qaybin karaa hal uu dhuftay 9 waa 9 waa isku mid gaashan uga shaqeyn karaa marka waxay fududaa marka koob aan ku sameeyo simplify si ay ugu fududaato markiiba waxaan 3 qayb waa 3 kana 3 qayb waa 2 marka waa markii ugu fududaato hadii kala lambar labadaas ku dhufan karaa oo xagaas ku qoran karaa 12 loo qayb 3 qataasna soo qaybin karaa marka waa isku mid marka sida simple ka aan u fududeystay aan uga shaqeynaa waxaan raayaa diraayo hore 2 lagu dhuftay 2 waxaan u qori karaa 2 lagu dhuftay 2 loo qaybiyay 3 waxaa la mid 4 loo qaybiyay 3 marka saasaan isku dhufan karaa ama waxaan samayn karaa saasna uga shaqeeyo waa sax uga shaqeyn karo ama hadaan wax isku labadana isku dhufanaa 12 loo qaybiyay 9 waxaan ka bisna 3 aan soo qaybin karaa oran karaa 3 u qaybi waa 3 12 loo qaybiyana waa 4 marka answerku waa isku mid oo magaalada jawaabtu mar walba isku mid noqonaysaa laakiin waxa muhiim ah waxa uu fudud qof markii uu ku sameeyo simplify markii uu tuu yareysto saas ugu dhufsado marka haddii aan bixino tusaale kale oo ku saabsan isku dhufashada tusaale ahaan oo kale e baan haystaa hadii saa u qoran tahay xisaabtu maxay noqonaysaa 1 divided by tusaale ahaan oo kale waxaan haystaa loo qaybiyay 3 loo qaybiyay 2 oo kale waxaan haystaa lagu dhuftay hal loo qaybiyay 4 oo kale oo lagu dhuftay 2 loo qaybiyay 5 oo kale tusaale ahaan taas oo kale haystaa marka maadaama hadda awal 11 haysan hadda 3 noqdaan ama ka badan noqdaan wax kale ma aha kuwaas sareeyo isku dhufanaysa kuwa hooseeya isku dhufanaysa ama se waa marka hore waxaad u samayn kartaa oo kale qaybtan oo kale labada isma qaybsanaan laakiin kuwan oo kale isku qaybsan karaa fududeyn kartaa laakiin ama se kuwaas la isku dhufanaysa kuwan soo isku dhufanaysa sida hadda ku fudud labada waxaan oran karaa 3 lagu dhuftay waxaan u qori karaa oo kale tan 3 lagu dhuftay 1 oo lagu dhuftay 2 loo qaybiyay 2 lagu dhuftay 4 lagu dhuftay 5 marka waxa ku dhufashadan calaamadan intaan la isku dhuftay way u taagan tahay sideedaba soo qaybinta fractional marka maadaama ay say yihiin dad labada isku jiri karaa number 2 iyo labada isku jiri karaa waxaan oran karaa labadaba isku jir baan oran karaa maadaama ay ku dhufasho ka dhaxayso waxaan oran karaa soo baxay xagga sare 3 lagu dhuftay 1 waa 3dii أنا حيوصل بحث أفر لغو لفتي شنو على واتن بس أنا بشتغل كلا بدأت سؤالك لك إنه سؤالنا هذا السنة صدق كانوا إحنا استنى هل لو سؤالنا خلا ولغو لفتي هل حكم إحنا أفر حكم صدق إحنا سؤالنا خد سهل كشغل ليس هذا السنة بشتغل حكم علاوة كل فاش تاعي واسيدو 10 كورا kala soo barnay wax kala ma sameeyay markii ugu horeysa waxaan u qoray horta mix number ka saaraya kuna mix number ka saaraya tan waxaan 10 ku soo barnay waxaan labada waa isku dhufanaa kana waa ku daranaa ma waa sidoo kale waa isku dhufanaa tan waa ku daranaa marka wixii waxaan soo baxay sidii ay asalka ahayd waxaana laba lagu dhuftay 3 waa 6 halna ku dar waa 7 waxay la mid tahay 7 loo qaybiyay 3 tan waa soo qaadanaa sorry 7 loo qaybiyay 2 hooseeyaha marka laba بدأنا سوا marka hooseeyaha mar baa soo qaadanaysa laakiin labada isku dhufanaysa kana waa ku daraysa marka waxaan nidhi labada waa isku dhufanaya kana waa ku daraysa tan waa sidoo kale labada calaamadana ay soo qaad ku dhufan 3 lagu dhuftay 1 waa 3 lagu daray 4 waa 7 marka 7 loo qaybiyay 3 hooseeyahana sidiisa u soo qaadanaysa hooseeyaha marka hadda waxaan haystaa marka sida micnaheedu waxa weeye labada sare isku dhufan labada isku dhufan marka waxaan u qori karaa 7 lagu dhuftay 7 calaamada waa micnaheedu marka way kala goonaa hadda waa soo qataan xariiqda hal xariiq ma ka dhaxaysiin kara laba lagu dhufto 3 marka waa maxay waa 49 hadii la isku dhufto 7 lagu dhufto 49 loo qaybiyay 2 lagu dhufto 3 na waa 6 asaasan wax shaqeyn kara soo saar
xisaabta aad doonaysa saas ugu shaqeynaysa wax kale ma sameynaysid. Marka haddaynu hadda ka hadalno isu qaybinta iyada maxaa iska bedelaya. haddaan tusaalaha koowaad bixino isu qaybinta, tusaalahaan kale waxaad haysataa xarfaad haysataa, tusaalahaan waxaad haysataa x oo taagan xaraf oo loo qaybiyey y oo taagan xaraf oo loo qaybiyey a oo loo qaybiyey b. marka calaamada hadda waa u qayb marka hore ku dhufashay maxaa iska bedelaya. iyada waxaa noqonaysaa si looga shaqeynayo xarafkan ugu horeeya labada xaraf ee soo qabsan ugu horeeya siduu joogay iyada waxaan noqonayaa soo qaadan x oo loo qaybiyey y calaamadu waxaan u bedelayaa ku dhufo lagu dhuftay. marka halkaas waxa iska bedelaya waxaa noqonaysaa qaybtan dhinacan waxay noqonaysaa kan sareeyo noqonaa kana hooseeyo noqonaa. marka way isdaba marayaan waan kala gediyaa waan qalab gediyaa kii sareeyaha wuxuu noqonaa hooseeyo kii hooseeyaha noqonaa sareeyo. marka calaamaduna ku dhufaysaa ku dhufo maadaama calaamadu ay ku dhufato noqoshay waa inaan labadan kala bedelaa. marka awal hore waxaa sareysay a b na way hooseysay. marka hadda waxaan odhanaa b oo loo qaybiyey a. marka way kala bedelmay labadaas waan kala bedelay. marka a iyo b waan kala bedelayaa maadaama hadda ay isku calaamadu ku dhufatay sida hadda aan soo barnay oo kale maadaama hadda ay ku dhufatay oo la isku dhufashanayo waxaan u qori karaa macnaheedu isku dhufashada wax kale macnaheedu ma aha maadaama laba lambar saas isku dhufsan yihiin in labada isku qabsan labada isku dhufsan yihiin waxaan u qori karaa sidan waxaan u qortaa a inay x oo lagu dhuftay b oo loo qaybiyey y oo lagu dhuftay a. marka wixii labada ka soo baxa inta ka soo baxa waan ansarka noqonaya. marka haddaan tusaalayaal bixino kale waxaan haysanaa 1 divided by 2 oo loo qaybiyey 5 divided by 2. marka haddii calaamadu oo qayb waxaan niri labada waa soo qaadanaa labadan calaamadu ku dhuftay noqoto labadan kala bedelmayaan oo laba wixii tirsa kor shan hoos bay imaanaysaa. marka waxaan qori karaa 1 divided by 2 labada tirtiga soo qaadanaa intaas oo lagu dhuftay labada korigii shantana xag hoose soo dhig. in kaliya waa kala qadiisa hadda waxa ku soo waan kala bedelaya labada kor tagto shantana hoose tagto basiye. maadaama hadda aan calaamadu ku dhufashay tahay sida hadda aan soo barnay wax dhibaato ay u hayso kadibna wixii soo qaybsan waa soo qaybin karaa ama hadda waxaan karaa labo hal lagu dhuftay labo lagu dhuftay 5 waa 10. marka labo iyo laba sareeya ay 5 hoose labada waxaan qaybin karaa labo. marka hal loo qaybiyo 5 bay soo baxaysaa ama waxaan sameyn karaa hadda waxaan sameyn karaa simplify iyo labo isku qabsan labo qayb waa hal tan labo qayb waa hal. marka simplify waa ii fududeeyo kaasa fiican badan dadka xisaabta ku shaqeeya iska fududeeyaan waxay garanaysaa waqti badan ka qaadanayaan iska fududeysa ku qortaan. marka haddii hal lagu dhuftay hal waa halkii daakana waa hal lagu dhuftay 5 waa 5tii. marka saasaan u qori karaa waa asal pointers. haddaan tusaale labaad bixino tusaalahaan waxaan haysanaa 4 loo qaybiyey 5 loo qaybiyey 24 loo qaybiyey 30 tusaalahaan oo kale. marka waxaan niri tan tabta loo soo qaadanayaa calaamadana ku dhufan ka dhiganaa tan weyn kala qalab gediina. marka tan korbitiga saatan hoos bay imaan. waxaan odhanaa 4 loo qaybiyey 5 oo lagu dhuftay calaamad ku dhufasho maadaama noqotay 30 loo qaybiyey 24. bas ma hadda halka mar soo xigto aan fududeyn karo fududeyna kan waxaan odhanaa tan 4 u qaybada 4 qaybsanto waa hal tan 4 qayb waa 6 tan 5 qayb waa hal tan 5 qayb waa 6 kale 6 iyo 6 soo qayb wax asarka ka soo baxaya jawaabtii aan haystaa hal asarka waa intaas. marka taasna sidaas aan u shaqeynaa. tusaalahaan oo kale haddaan tusaale kale bixino oo qaybinta waan sii kuma aan tusaalahaan oo kale waxaad heli kartaa marka qaarkood 8 loo qaybiyey 8 loo qaybiyey hadda tusaalahaan oo kale 3 loo qaybiyey 4 oo kale tusaalahaan oo kale haysta. marka sidaan tii hore oo kale kusoo sheegnay wax kale ma aha 8 hadda hal baa qarsoon loo confuse ku noqon hal baa qarsoon si tabtooda u kala u shaqeynaysa xaaladasa 8 yar iyo soo qaad calaamada ku dhufasho ka dhigana ee labadana waa kala wareejinaa waxaan oranaysaa 4 loo qaybiyey 3. bas maadaama hadda tan hal u qarsoon tahay labada sareeyana isku dhufanaa labadana waa isku dhufanaa. marka labadan hadda isku dhufto waxay noqonaysaa 32 loo qaybiyey 3. taas aan u shaqeynaa wax kale oo magaranaysaa aan qabanay ma jiro confuse ma jiro sida tii hore oo kale aan u shaqeynaa. haddaan tusaale kale bixino kale aan diin idhaahno tusaalahaan waxaa haystaa 3
shan oo loo qaybiyey shan kale tusaale ahaan oo loo qaybiyey hal idan waxaa haystaa afar labo marka maxaan odhanaa tan oo kale maadaama sidii hore kale kusoo baranay waxaan sameynaa labada nambar oo isku dhufanaa tan waa ku diranaa hooseyahan waa soo qaadanaa tan waa ku dhufananaa tan waa ku diranaa hooseyahan soo qaadanaa marka sidii tii kale oo kale weeye waxaan odhanaa tusaale ahaan oo kale haddaan calaamadiyo oo kale tusaale ahaan labadan waa isku dhufanaysaa tanna waa ku daraysaa tan waa ku dhufanaysaa tan waa calaamad soo qaadanaysaa tan waa sidoo kale tan waa isku dhufanaysaa tanna waad ku daraysaa okay marka labadan isku dhufo waa 15 labo shan ku dar waa 20 loo qaybiyey 5 ay calaamad sabti gudda labadan isku dhufo waa labo labana waxa ku dartaa afar waa 6 loo qaybiyey labo hadeer waxaan haystaa foomkii caadiga ahaa laba lambar oo isku dhusan haystaa hadeer tan waa soo qaadanaya tan ku dhufan ka dhigayaa intan waa kala bedelaya waxaan u qorayaa 20 loo qaybiyey 5 oo lagu dhuftay laba loo qaybiyey 6 halka markay marso waxaan fududeyn karo fududeynaa marka maxaan fududeyn karaa tusaale ahaan waxaan karaa intan laba qayb waa soo qabsan laba qayb waa hal tan laba qayb waa 3 ay tan 5 qayb waa hal tan 5 qayb waa 4 marka waxaan oranaysaa jawaabtii 4 oo lagu dhuftay hal waa 4tii 3 hal oo lagu dhuftay waa 3 أساساً. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.